بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مع كعان التكنولوجي نيسيوت اللي قبرتو علمي اي سي تي يا كونتين كوكو بحلو قضاء الصومالية. ألا أبو عشر درس عسياني وشافع أحمد عالم. إن شاء الله ما أنتو حنيقا دونا كورس لغانا كورسوين قابان أو ما نكستاين وشي إن شاء الله كسو قادان دونو. ما إن شاء الله كورس كيني وحنكو إيقي دونا كورس رميسترين قودهان. qaabka iyo habka uu shaqeeyo service-ka loo yaqaan Gmail qaabku uu shaqeeyo qaanka doona Gmail qaabkii iyo habkii loo sameeyaa Gmail habkii loo isticmaalaa Gmail services qaabkii loo isticmaalaa Gmail qaabka security-giisa wax looga bedelaa Gmail qaabka password looga jabiyaa inta boon isleeyahay waxaan Gmail qaabkeeba YouTube channel lagu sameystaa intaas oo crash course runtii course ama istirana ayaynu doonaa inaan maanta isla eegno runtii waxaan sameyn doonaa haddii la ka dhigo inaan markii waad ka bilowno sida loo sameeyo waxaan furi doonaa runtii browser ka mid ah browserdan furaya marka halka fur waxaan ku qori doonaa gmail.com baan leeyahay gmail waxay soo baxaya account-kii kala duwan aan isticmaalay marka hadii markii ku horeysay tahay waxa ku soo baxay doonto maxay account kale aan isticmaalaya baan leeyahay sidoo kale ku soo baxaysa sidan laba qof ay isticmaalaa marka in aad samayso Gmail hore u jiray inaad leedahay oo Gmail account haysatid halkaan isticmaalaysa iyo inaad Gmail cusub samaysanayso marka inuu hadda mid jira ma haysano laakiin waxaan samaysanaa mid cusub ayaynu samaysanayna waxaan leenahay create marka saddex qodob soo saaraya marka kan business baa loo isticmaalaa kan carruurta loo isticmaalaa waa carruurtana wax badan baa runtii laga xidhaa waxaan leenahay for myself ana isticmaalaya فمثلا فرق صار هذا وحن كقول دونا هل كان معلومات كوباد جيميل كان بوحين دورا معلومات كان ومعلومات كنتي أساسي ومعلومات أشياء كوارين اللي بوحيو مركو وحن كقول دونا ما حي معلومات كان هل كان وحن كقول دونا الشيخ لويق إنه عبد القادر وحن لين ترى سؤال يقول دينا أحمد بطلنا عبد القادر أحمد سامر لها عبد القادر أحمد waxaan u baahanahay hadaba magacaani marka Gmail la joogo wax allaaliye wuxuu taraa ma jiro wax allaaliye wuxuu qabtaa ma jiro laakiin maxaynu u baahanahay waxaynu u baahanahay username kana muhiimada ugu weyn tahay iminka isaga kan noo soo qoray waa available buu ku leeyahay wuxuu qoray Cabdi Qaadir 71 waa magac soo qoray u baahan kan marka username kani waa kii hadhowto qofka lagu raadin lahaa waa qofku hadda taa email iyo fariin iyo soo dir waa kii uu eegi lahaa ama waa kii aad u sheeg lahayd laakiin kasta Facebook oo kala magaca ayuu soo sheegaa Soomaa laakiin username kani waa kala soo sheego marka oo kala soo sheego marka hadda username kan waxaan ka dhigi doonaa tusaale ahaan sheekh loo yaqaan aanu soo doonaa Cabdi Qaadir Ahmed Batale hadda Cabdi Qaadir Ahmed aan ka gudubno password kan gudbiya halkan waa la haysto aragtaa wuxuu ku sheegay this username mistake halkan magaca laga rabaa magaca unique magaca qof hor qaatay wiliga laga yeelimay marka meesha tan magaca laga rabaa waa magaca unique oo kaliya weeye marka waxaan sameyn doonaa si magacu unique u noqdo waxaan ku dari doonaa saahan kale waxaan leenahay soddon ku darto وكايمنك مقعن هور لو قادن عبد القادر احمد صدر الجيميل كسيات سمده ku dari doona adigu waxba qaban meeysi inta markaan sameeyo halka waxaan gelin doonaa passwordkii Cabdi Qaadir ayaan ka gelin doonaa aan sameeyay password aan adag bal sameeyay wuxuu leeyahay passwordkaas waa inuu noqdaa 8 character waa inuu noqdaa mixing letters numbers and symbols waa inuu ku jiraan calaamado xarfaba waa inuu ku jiraan qawaas midna password inta waafaqsan ayaan runtii sameynaya marka ay ku celinaya password laftirkiisii way passwordka markaan saa u sameeyo waxba save gareyn passwordka lama save gareysto hadhow waa tusi doonaa hadii save gareyn meesha laga helayo waa nooc kamid ah runtii security-ga in passwordada browserka aad iska leedahay aad ku taa waxba ka kaydin way qofka computer-ka qaata passwordadii ku qarsoon dhan soo saaray inta midkaynu buuxino wali hawshu wayna socotaa waxaan leenahay nagasti qaybta xigta inoo soo imaanaysa ama tabka xiga waxaan gelin doonaa hadda meesha waa meel aad muhiim ah runtii ardayda caqabada ugu weyn haysata ama inta badan dadka arkay caqabada ugu weyn haysata waa meesha loo yaqaan recovery number
recovery kan waa recovery email kan waa recovery number. recovery-gan wax badan buu inoo taraya hadii passwordka ilowno isaga inuu jibin doona haddii wax badan buu inoo taraya recovery-gan marka haddaad ka tagto maanta oo passwordka ilowdo email-ka ama Facebook account-ka ama Instagram-ka waad ka maanta ugu dambeysay lama jibin karo waxba laguma sameyn karo marka runtii haddaad laba isticmaal imka soo ku laba isticmaal number yakan one optional runtii ku dhaafinaya one optional qofay aan marka u horeysay mobile aan lahayn ba suuragal boogti marka optional ahaan buu ku oranayaa optional waa dadin u buuxin kartaa laakiin optional waa aad buu muhiim tahay in labada mid aad buuxiso ama number-kaaga ka dhigato ama email ka dhigato soo maaragtaan kanu hadda number-keenu wada haysanaa dhamaantiin number-kan marayna marka sheekhaan sameeyay number-kiisan gelinayaa waxaan leenahay 63710 waxaan gelin doonaa 2016 marka number-kan kan saa u geliyo aan 63 ka bilaabo 0 oo laga tagay standard list loo qoraa ma number baan siinaysaa recovery email marka email kale hadda haysatid gelin kartaa runtii waa muhiim inaad geliso laakiin hadda waxaan diidayaa inaan runtii xogaa ay advanced maadaama arday bilow qaybtan u dhiganayo marka email ka doon ka tagaya marka sheekha waxaan gelin doonaa goobtiis xilligiisii dhalashada ayaan gelin doonaa salahan waana runtii waxaan gelin doonaa sheekhaas wuxuu dhashay 2000 inta markaan sameeyo waxaan leenahay halkan waxaan ka dhigi doonaa mail waxaan leenahay jinsiga waxaan leenahay next inta markaan soo sameeyno runtii waxaad aragtaa hadda wax code inoo soo dirin code-ka waa muhiim inuu ku soo diraa laakiin ku xataa code-kiina ma soo dirin laakiin code-ku waa mid hadhow account-kiina ma verify garow ilaa code-ka inoo soo diro waa marka ciladaas waxay uga hordoon doontaa markaan YouTube channel sameysano ee aynu video ugu horeeysan soo geliya ayaan ugu hormaan doontaa markaas aynu baahan doonaa code-ka marka imuu halayna agree waan ku raacnay marka hadda wuxuu diyaarin doonaa dashboard-kii ama wajahadii buu diyaarin doonaa gmail-kiina ayuu diyaarinayaa waxa durbo hadarta astaantii Cabdiqaadir waxa horeysa caab oo horta ziba horeysa durbo saqa profile sumay zibu sumay marka waxa leenahay godid saa marka wajahada ugu dhufano wajahada doonaa inaan sharaxno interface-ku waxa ugu muhiimsan runtii dadkiin aad uma yaqaanaan email-ka isticmaalkiisa haddaad mobile-ka isticmaalayso waa intaanoo taabiya laga dhigay oo halkaa view-ga mobile-ka markaad bartaas kale ku dhufato inta kusoo baxaysa waa intano marka runtii email-ka in la isticmaalayo aad bay runtii u muhiimsanta in email-ka la isbarto oo la isticmaalo email kasta loo isticmaalo aad bay muhiimsanta waxaan sameyn doonaa marka koowaad inaynu interface-kiisa kala barano haddii xaan kasoo bilaabo marka koowaad ishaa ku dhufano ishaas waxay ku sheegaysaa email-kan isticmaalaya hadda iyo magaciisa iyo halka laga maamulo oo manager Google ko marba isticmaal doonaayo security-ga iyo meesha ka isticmaal law halkan oo kale waxaad aragtaa isha hadaynu furno service badan buu wataa wuxuu wataa talaana kale service ku qaarsan drive-ka kamida oo aad hadaan isha ugu hayno sameyn doon drive-yada translate buu wataa wax badan buu wataa runtii photo wataa documentation badan buu wataa waad aragtaa marka mapping-kii buu wataa wax badan buu wataa qaybtan ku xigtana waa settings-kana iyadana wax badan baa ku jira waxa settings badan baa default-ga ama muuqaalkiisa customize garee muuqaalkiisa in yaraan iska bedelo maadaama muuqaalkiisa aad u bilicsanay oo cadaan yahay muuqaalkiisa in bedelo marka settings ku dhufano waxa leenahay see all settings marka waan sugi doonaa inta settings soo baxayo marka waxaan leenahay diimiska ayaan tagayaa oo diimisku wajahada kadib runtii qurux badan ayaan soo qaadan halkan waxaad aragtaa waxa lagu siiyay 15 GB ayaa isticmaal kartaa oo free oo waxa uu dhiganta oo xogtada dhigan kartaa marka waxa leenahay zdimis waa sugi doonaa marka wallahi inta waxaan ka dooranaa midaan isleen aad buu qurux badan yahay waa fiican yahay waa ku soo baxaya tusaale qaar waxaan doonayaa tobankan oo kale aad buu fiican yahay markaan waxaan click siinaya kama ka soo doorano click baan siinaya waa years oo load garanayna waxa leenahay save waka sida soo bedelay email-keeni waka marka settings-kii baan ka soo bedelay halka marka saddexda inaan aad isla fahanay ayaan jecelahay kuwana waa iman doona dalka dhiga taabiyadan waa ku iyagiyo halkan lagu soo koobay waa taskiyadii waxyaabo halkan lagu soo koobay weeyaan
ka kaala iska soo noqo bartan haddaan qaybtan usoo noqdo qaybta aan ka bilaabo meesha aad baynu isticmaali doonaa compose waa halka emailka laga diro markastan email dirina waa meeshan ka dirina waa halka ku taala compose ayaan ka diri doonaa haddii alla ka dhigo marka kaasaan isticmaali doonaa compose ku taalo inboxka waxaa yimaada fariimaha lagu soo diro fariimaha qofka ku tiriyay soo dir ee aad ka sugaysay halka imanayaan inboxka marka hal fariin baa la soo diray Google baa hal fariin oo inagu hambaliyeenayo inaan account ka samaysana inoo soo diray marka waa mid automatic qof kasta oo account samaysta loo diro waayahay meelaha muhiimka leen eegid wax kamid sentence waxa weeyaan waa kuwii adigu aad dirtay meesha laga helayo email baad dirtay wax ka helaysaa emailkii aad dirtay xalay sentence kan ka helayaa marka waxa ku leeyahay no sent message waxa fariino oo guud ahaan aad dirtay ma hayno ama ma jiro waad aragtaa drafts kana runtii waa meel muhiim ah drafts waxa gala taado dirayo kala 5 second waxa haysataa in undo samayso undo waa ka noqo marka waxa ku oranaya 5 sentence out 5 second buu ku tirinayaa inta undo ku samayn karto marka iyadana drafts waa shay la diyaariyo u baahan la diro u baahan marka haddana shan si furno import sigaas oo iyadana muhiim ah import waxa weeyaan email kasto lagu soo diraa import ku soo sii galaa waa import waa shay la sii ilaalin loo meel si looga sii helo weeyaan oo inboxkana waa yimaada importgana marka akhrisato ayuu galaa marka laakiin marka message kugu taagan yahay halkan uu galaya marka message kugu taagan yahay waa kan Google oo kale waa ka message wankii la ku taagna waa iska qaadnay waa ka marka imika wuxuu gali doonaa marka qaybaha dambe waxay gali doonaan wax importantka halkan si automatic u soo gali doonaa email kasta oo lagu soo diray import u gali doonaa marka daaqadan iyo tabkan intaas ugu muhiimsan oo la isticmaalo runtii hadda waxaan ka bilaabi doonaa inaynu qof fariin u dirno markaynu runtii fariin dirayno waxaan ku dhufanaa halka ku taala compose ayaan ku dhufanaynaa compose markaa tu yaad u diraysaa weeyaan qofkan aad ku wada u diraysaa waa maxay tusaale kale imika waxaan u dirayaa oo kale waxaan leenahay sidan waxaan leenahay 10 emailkaygan u diri doonaa fariin oo waxa uu diri doonaa Cabdiqaadir baa diraya fariinta halka wuxuu u dirayaa emailkayga anigu aan leeyahay weeyaan aan isticmaalo waa ka saamarku geliyo subject aad diraysaa waa maxay subject wax laga boodi kara ma wax required wax qasab wax laasima marka subject wuxuu noqonayaa waxaan dirtaa waxa imtixaan ba ma documentiba ma codsiba waa in fariinta loo sameeyo ciwaan imika kale waxaan leenahay toolahan kale example waa imtixaan toolahan halkana waxa lagu qoraa detailkii imtixaanka faahfaahin dheer imtixaan ku saabsan waxaan leenahay imtixaanka number of copy-ga laga sameeyo waa madbacadba number of copy-ga laga sameeyo waa 2 pages baan soo leeyahay number of copy laga sameeyo waa arday intay leeyihiin 20 arday baa soo galaya waa number of pages waa 2 number of pages waxaan leenahay toolahan oo kale roll over pages dana pages isku rogo kale macluumaad noocaas kan gelinaya halka waa in si faahfaahin loo sii qoro detail loo sii qoro maxay shayga halka ka xorma qof soo fahmo meeshan waa akhrisanaya marka intaas kale markaan saa u sameeyno waxaan leenahay haddaba imtixaankii iyo committee-kaaga yaala waa inaad ku soo attach garaysaa halkan keentaa sidaan ku soo attach waxaan ku dhufan doonaa file attach ayaan ku dhufanaynaa file attach waxaan tagi doonaa marka desktop baan leeyahay marka desktop waxaan dirayaa runtii emailkan admission-ka baan tolan diray admission-kan ayaan double click siinayaa dismiss waxa yar iska dheh 70 KB waa inoo diyaar internet-ka runtii si wacan ugu soconaya xawaarisu fiican yahay 70 KB waa diyaar weeyaan haddii uu 70 KB soconayo halkan uu maanta socon lahaa laakiin 70 KB way yar yahay markiiba uu ku dhaqsaday marka haddaba waxa leenahay sent you file-ku soo dhijinay waa email-ka waa naga sheegnay email khadar inaga wada qornay laakiin wixii dambe aynu dirayno wixii dambe email-ka aynu dirayno waxaynu sameynaynaa isaga garanaya marka inta markaanu sameyno waxaan leenahay sent u dir marka browser baan hadda isticmaalaya halkan waa hoos ka arta Chrome baan hadda isticmaalaya bal marka kaygii waxaan ka soo geli doonaa browser-kan loo yaqaan Edge baan furayaa waxaan leenahay gmail.com marka Edge waxaan ka soo geli doonaa browser-kaygii ayaan ka soo gelayaa naga stiiraado kawan ka noqonaya kanaan ku dhufanayaa
وكا وكوان قليبا حتى واحد أركتا فريم بقى يتهلا وهذا اسكو داشبورد معها وإيميل كان استعماله فريم بهذا يتهلا عبد القادر أحمد الصودري exam number of copies 20 pages رول هكذا كاركا وابن إلي تصام وحمان سوق معنا وطلوا محي محاو صودري سانوس أركون كروفانيا تيدا waxay number of copies 20 ka dhig 2 page weeyaan roll over sumarta marka kana waa admission weeyaan tan imika fur waan ku dhufan karnaa marka click baan siinayaa waad aragtaa waa admission marka waxaan awood u leeyahay admission ka sameyn karaa inaan drive ka dhigto drive waxa weeyaan inaan kaydsado oo Google Drive ka aan dhigto si aan marar dambe u isticmaalo inaan daabaco kow oo laba la inaan daabacayadana iyo inaan maxay sameeyay download ku sameeyo marka qofkii aad u dirtay awoodii oo dhan uu u leeyahay shayga yani wixii awood ahayd shayga waa u leeyahay marka iminka marka insaas kale yiraahdo admission karo kala hadii baan uga noqonayaa waxaan sameynayaa inaan hadana file kala soo diro laakiin file-ka permission baan u sameynayaa si iminka kan oo kale file kan oo kale wax kastaba runtii awood oo dhan leeyahay qofku diisan karo بريتن garaysan karo daraf garaysan intaba way imika tan file xasaas dirayo diuma baahan download la sameeyo ma baahan hadan file xasaas dirayo qofku inuu drive ka dhigto kayso ma baahan waxaan u baahnaa kaliya inuu daabacdo sidee security lagu sameyn karaa marka sidee security file ka address waa imika qofkani si uu doono u yeeli karaa waa disan karaa waa daabacan karaa waa kaydsan karaa intaba laakiin qaabkood ugu ogolaan kartaa kaliya inuu daabacdo labada kan lagu xidhi kartaa taasoo aad iyo aad runtii muhiim ah فرينت أنا أدري هذا وحنو دري دونا مركا عبد القادر إيميل كيسان صوهبيو وأهل كان فريا وكان عبد القادر أحمد صدن صدمة عبد القادر أحمد صدن @gmail.com والله هو بينيا هذا بكي يعني منيا وحندري يا بلين كومبوز حندري يا بلين صراحة عبد القادر أحمد صدن بان ليهاي @gmail.com بان ليه واي سبجكت هذا سواء فايلز كعادي او فايل دوميتيش كفايل ka sheegta waa garanayna faylku wuxuu ka koobnaa marka waxaan soo dooran doonaa faylkii ayaan hadda soo attach gareynayaa taa faylkan luqad yaro waa dhowr paragraph inuu yahay fayl aan muhiim lahayn open iska dhig 12 KB wax yar buu qaadanaya ka socda markiiba inta markaan sameeyno waxaan leenahay senti intiina senti oranta hadii senti sidii oo kale ayuu awood oo dhan u yeelanaya laakiin waxaan u baahanahay in hadda niri waxaan u baahanahay in aynu awood u yeelo oo sameeyno maxay oo nidhaahno qofku wuxuu sameey karaa toonano kale kaliya uu daabici karaa laakiin ma digsan karo mana kaydsan karo runtii wax aad loo isticmaalo security loo isticmaalo ay buugo kala diraysaa dibadda waxaan daabac laakiin iska kaydsadaan si kala u isticmaalaan bedelaan ama inay inta iska drive iska dhigtaan si kala u isticmaal labaduba waa khatar weeye laakiin waxaad ku qasbaysaa maxay kaliya inay daabacaan waxaan sameeynaa marka waxaan ku dhufan doonaa halkay ku taalo turn on ishaan ku dhufan doonaa turn confidential mode on off ayaan ku dhufanaynaa marka waxaan isku daraa expiration-ka iyo awoodda saasraac expiration waxa waa dhicid inta ay ku dhacayso muddo hal cishaha ku dhacdo oo maanta bishu waa 20 bisha ka dhacdo xilligeeda oo marka dhacninkaas wuxuu soo kordhinayaa waa awoodo inta kadib maalinta waxa ku noqon madbacada daabaco hadii maalinta madbacadu ay daabacan weydo halkan waxaad aragtaa hadii maalinta ay madbacadu ay daabacan weydo way dhacaysaa oo fariintii dib loo soo noqonaysaa way ka dhacaysaa qofkii awoodiina kale la socota marka awoodii hadaan sheegayna ee ahayd maxay qofka in aanu drive kaysan karin lana soo deegi karin awoodii tan la socota inta marka waxa leenahay safe noo safe gare dabadna waxa leenahay senti hadda Cabdiqaadir waan ka soo check gareeyaa in fariinta soo tagtay hadda undo wala sameyn kadaan undo sameeyo drive kii waxay gelisa trafiska igelisa qaybku way tagtay baalan kaalay imika ma hayno laakiin inbox-ka hal mar ku dhufo markiiba way soo gelisa fariintii aan yar sugno waxa taa ya soo diray magacayga ku yaala halkan waa new message ku dhufo waa astaantiisu maxay title-kiisu waa file ka file-kii baan sidii file-ka fur waxaan ku arkaa ku sheeg contact expires August 2021
wuxuu kuu sheegayaa in contactigan ama shaygani uu dhacayo xilliga ah. qabal waan furaynaa, waxaa taa way inoo furanta halkan. waxaa taataa iminka xoogaa wuu soo wada daabacadda xoogaa way soo raagtaa, aad bay soo raagtaa. laakiin iminka halkan waxaynu ka xidhnay maxay drive-kii, daabacadduna xoogaa kadib way imanaysa, daabacadduna xoogaa kadib way imanaysa. oo kaca marka iminka qof keliya just waa daabacan karaa, daabacaddina iyaduna way imanaysaa. waxoogaa marka iminka aynu hayno waa imanaysaa, marka waa imanaysaa. ka labadii kale iyo awooddii kalenu ka wada saarnay, awooddii baynu ka yarayna hadda kan. waaye laba qaab baynu hadda aragna oo fariin loo diro, laba hab iyo laba qaab ayaynu hadda isla fahan oo fariin loo diro. qaabka u dambeeya fariinta loo diraa waxay tahay, qof oo kale ku yidhi hadda iminka timekaanaan wax duubayo waa timeka waa 2:06 duhurnimo. 2:06 duhurnimo marka iminka saa u tahay, qof waxaad iisoo dirtaa galabta ama waxaad berri toole subax haddii alla ka dhigo waxaad iisoo dirtaa email berri subaxnimada 7 oo buura fariintii iisoo diray isku ogeey. waxaa laga yaabaa berri toole in internet baan helayn ayaa suuragal, laakiin hadda internet haysatid hadhow aad ka baqaysid in internet weyd. maxaan sameynayaa marka? waa inaan fariintaa idhaahdaa berri toole tag, oo intaa way sii guuxaysaa fariintii. berri toole unba insha Allah u tegaysa. sidee baynu taa oran karnaa? bal imika waxaan joogaa halkan, waxaan joogaa emailkii, waxaan joogaa Cabdiqaadir sidaa aragtay Cabdiqaadir. waxaan leenahay compose tusaale aanu ii diray imika way isgaranaya marka SH taa u qorabo markiiba uu soo boodaya emailkii, maadaama mara wax isu direen wixii dambe loo baahnaa in magaciyo dhan dhamaystiran noqon. haddii mara isu direen uu soo qabanaya markii. subject waxaad ka dhigtaa tusaale ahaan kale sawir marka ila macluumaadka sawirkan ku qorina halkan waan soo attach garanayaa sawirkii. sawirkan kusoo dhawaa sawirkan duca qabe dibna xaleen open duca qabe 4 KB waa inoo soo galay marka oo JPG ah. duca qabe markuu soo galay haddaba waxaanu u baahanahay duca qabe inuu fariintaas ay tagto berri toole goorma 7 berri toole 7 oo berri toole bishu maanta bishu waa 20 berri toole bishu 20 tahay 7 subaxnimo insha Allah. marka waxaan sameyn doonaa sent ku dhufan mayn ishaasan ku dhufan doonaa. waxaan leenahay schedule sent baan leeyahay waa timetable u samee ku dhufo. haddaba waxaan leenahay goorma tigis, waxaan leenahay tomorrow morning afwan waa ka noqonaynaa gacanta inay ga dhacday, waa kan waa soo noqday. ishaan ku dhufo waxaan leenahay schedule sent, waxaan leenahay pick date and time. tomorrow morning waa 8 meesha ku qoran. waxaan doonaynaa inaan sheegno, waxaan leenahay anaga sheegina. marka waxaan tegi doonaa leenahay 12 bisha, time-kuna ay tahay 7 oo buura insha Allah. 7 barkii hal mar oo ka dhigi kartaa xilliga xilligaadato. waxaan leenahay 7 PM 7 AM weeyaan waa AM waa 7 subaxnimo. soo ma aragtaa 7 subaxnimo xilliga ay goorta ha tagto. waxaan leenahay ku dhufo. hadda fariinta waa sugeynaa inta ay ka tagayso. waa aragtaa sentence schedule for tomorrow 7 AM. okay weli aan dhow wada iminka fariintii ana la soo diray fariinta. haddaan emailkayga tago oo maantaba aan refresh emailkayga aan waxaan ka jiray emailkayga waa kan. haddaan maantaba refresh garay emailkayga ma heliyo, email heliyo ma. haddaba waxay isweydiin leh su'aal muhiim. emailka inoo soo diray waxaan wuxuu galaa inbox-ka. waxaan nidhi kainagu aynu dirno wuxuu galaa sentiska. imka Cabdiqaadir ku dhufto sentiska, Cabdiqaadir waxaad aragtaa inuu fariintaa u diray aniga. haddaba halku tegi halkaa waxaa ka hortaa schedule baan ku dhufanaynaa. waa hal schedule wuxuu leeyahay Shaafic Axmed bas u diraysaa sawir. waa sawirkuna waa duca qabaha. wuxuu tegi doonaa xilliga berri tegi doonaa 7 buura. hada soo ma aragtaa? waxaynu isla aragn hadda 3 qaab oo fariin loo diro. 3duba runtii aad baa loo isticmaalaa. 3duba inkastoo waa inta emailka dadka meherada isticmaal aad baa kooban tahay. dadka isticmaalana hal step bay isticmaalaan, 2 step inta badan dadku ma yaqaanaan. stepkan hadda xilliga fariintu ha tagto oo aad runtii u muhiimsan oo xilligaad u ilaawi karto oo qofku markuu sheegay ay fiican tahay. marka runtii aad bay u fiican tahay. 3da habbaynu soo aragnay oo ka soconayna marka. markii inta isla faahno runtii waxaanu isla eegi doonaa drive-ka iyo habka uu shaqeeyo. 15 GB ba hadda haysanaa halkan 15 GB ayaan haysanaa.
15 GB maxaan ku isticmaali karnaa wax alla waxaan doonaa ku qoran karnaa runtii anigu aad baan isticmaalaa drive-ka aad iyo aad baan runtii isticmaalaa oo hal Gmail ma anfaca anigoo Gmailada badan waxaan ku jecelahay waa drive-ka waayo waa cloud xogtaadii ka warwarimaysa waxba haddii la ka dhigo marka waxaan sameyn doonaa waxaan sameynaa insha Allah in aynu drive-ka sidaynu isticmaali lahayn aan idin tuso markaa waxaan tigi doonaa service waxaan ku dhufan doonaa Google Apps-ka u wato waxaan ku dhufan doonaa drive markaan runtii sidaa ugu dhufano way sugaynaa halka waxaan ku qaataa drive-ka iminka Cabdiqaadir drive-kiisa baan ku jiraa Cabdiqaadir waa maray drive-kiisu waa xog ma jiraa haddaba waxaynu u baahannahay drive-ka sidee wax loo dhigtaa shay computer-kaaga yaala sidaad u dhiganaysaa waxaan sameyn doonaa runtii in marka folder loo sameystaa oo waxaanu sameynaa de markaan computer waa sidii computer caadiga ah folder isticmaalaysa aniga koorsooyinkayga oo dhan waxay ku jiraan drive-ka waayo drive-kuna wuxuu ku sameynaa inaad permission iyo ogolaansho qofkii daawanaya iyo qofkii kala siiso markaa inaan koorsooyin dhinaca wala ku dhignaa iyo koorsooyinkan uu halkaan email-kan ugu xidhaa email qofkan ugu xidhnaa halkan markaa suuli gelisay inaan permission-ka noocaas sameyn runtii marka aan waxaan sameyn doonaa insha Allah waan tusi doonaa habkaas oo waan tusi doonaa ma jecelin waxba la qariyo oo qofka isay tahay baan ugu dhigaa ma jeceli in ma ogtahay qarinta iyo macna qofku wuxuu ku dhaamo qof kale in la qariyo ma jeceli waan tusi doonaa haddii la qariyo inkasta iskii cabas in kas aad muhiimsan tahay waa tusi haddii la qariyo marka waxaan sameyn doonaa folder sameyn doonaa marka folder si loo sameeyo right click baan leedahay bartan waxa leeyahay new folder marka new folder maxaad u bixinaysaa magac siiba leeyahay waa soo guuxayaa على new folder baan leeyahay waa soo socdaa waan filayaa waa culays waa kan waa soo socday marka hadda waxaan ku qori doonaa runtii meesha waxaan keeni doonaa tusaale ahaan PDF aan keeni doonaa waaba contact PDF waan ku dhufanaa create baan leeyahay oo kuwii hore imika igula ma samaysmaa dhowr bay ahaayeen halkan waxaad bixisa sawir waxaa leeyahay create kaana waxaad bixisaa muuqaalo iyo videos create haddaba waan sugi doonaa saddexdaa folder inta la sameynayo ka gacantan create gaarsiino right click intii aan lahayn ku dhufanaynay ayay saddexdan baynu lahayn sameeyay markaa ka haddaba sidii wax loogu guraa horta hadda imika halkan aan sax baan ku qoraa meesha ma joogno folderka weyn gudaha loo galaa waana meesha waa la kala manage karaya hadda meesha sawirka ka soo dhaxtaaso iyo PDF-yada way ka khalkhalayaan waxaan geli doonaa taan PDF oo kala double click si bartaan keenay waxaad sameyn kartaa ku leeyahay drop and drag halkan desktop-ka kor ka soo jiidi kartaa labada step aan tusayaa desktop-ka waxa imika PDF ma yaala bidhi ma laha download sawirka soo qabo waa kan waa browser-kan dabadna CD halka ka socotaa waa sawirka download loo yaqaan oo khabarta inuu yimi si kan itusi right click baan leeyahay upload file ama folder hadda folder soo qaadanaysa waa kan hadda file soo qaadanaysa waa kan marka iminka halkan markaan ka soo qaadano waxaan soo qaadanaya tusaale waxaan soo qaadanayaa kana soo qaadan tusaalahan administrator ka soo qaadanaynaa oo ka in yar buu soo qaadanaya maadaama administrator xogaa yar culus yahay oo ka soo maragta sidaana waa looga faa'iideystaa shayga loo yaqaan drive-ka runtii aad buu muhiimsan yahay drive-kan aad u isticmaalo 15 GB isticmaal أنا شريت من جيبي أنت بدل إيميل واحد كنت على شريت من جيبي كسيستيا مركا حقت هيدا وبدنا كمان ورورو كلاود كاسيت الله وحور ورورو كهلية ما تشتو مركا وقف إنت بدك كلاود يبسدان دي كلاود هو اللي يبسدان كست أشتر يو AWS كولي هاي أمازون أنت هو اللي يبسدان مركا رنتي دي dadku waxay diidayaan shayto imka dad 3 GB isticmaasho 45 GB waxa haysta 45 GB xogtaada muhiimka dhow ka kaafiyaysa marka xogta muhiimka imka program oo kale de muhiimad ma leh program oo kale waa hadhow dadku way la soo digaysa laakiin waxyaaba qaar ba muhiim ku ah marka kuwaas aan dhigtaa marka waxaan filayay inaan drive-kan isla fahanay oo aad u muhiim ah runtii drive-kan oo kale waxa loo share garayaa dadka imika kale waxaad u baahan tahay imika kale mid aad dadku ay sameeyaan taanka aad inta casha ku gurto PDF inta ku rido ama book rido aad u baahan tahay dadku inay soo degsidaan aad u baahan tahay dadku inay soo bahalayaan u baahan tahay marka waxaan sameyn doonaa marka PDF aan soo qurfan wax leenahay right click markaan soo wadaado imkan waa PDF waxaan u baahanahay in dadka aynu la wadaagno marka waxaan leenahay imka online-da kale marka wax ku dhigayso
folderka waxaad u baahan tahay inaad samayso awood aad u siiso dadkoo dhan in access gareyn karaan, waayo application baad ku leedahay imika kale wax access gareyn karo kula sida ka muuqata owner waa you waa adiga, cid kale ma access gareyn karto. laakiin waxaan u baahanay ummad oo dhan inay access gareyso, ciddii faylka linkigiisa loo diraa inay halka kala soo degaan oo saan sameynaa. ka hadda imika settingska ku dhufano halkan hadda ku dhufano meesha loo yaqaan changing owner ka bedelo, halka waxaan ka dhigi karnaa anyone with the link, qof kasto linkigan helaa wuu access gareyn karaa. imika okay nidhaahno imika pdf hadaa linkigiisa heshaan you can access now, waad soo access gareyn kartaa, waad isticmaali kartaa. marka qoostaan runtii sameyno ardaydu si buugta la soo deegaan waasaan sameynaa noqdo way. halkaana maxay soo faahnay qaybtii Google Drive halkaasaan ku dhameeyno runtii waan iska soo xidhayaa. service-yada kale runtii aan idin tusayo waxaa kamid ah service-ka loo yaqaan translate oo gaar ahaan translate waxaan tusi doonaa document translate, qaabka documentiyada loo turjumo wariyaasha xoog isticmaala. wariyaasha document dhan baa waa hay'ad soo dirta Carabi ama English, qofkan luqadda kuma wanaagsanaba sideedu gelinayaa sideedu u saaraya. qada inshaan ku dhufarno waxaan ku dhufan doonaa halka ku taal translate marka saa u sugno halka waxa wata text translate waa marka hadal uraah turjumayso. laakiin hadda waxaan u baahanahay document translate baan u baahanahay. document marka saa u nidhaahdo waxaan leenahay deedna browse soo dooro. browse marka idhaahdo deedna waxaan hadda soo dooranayaa tusaale ahaan oo kale documentigu yaalaa waxaan soo dooranaya kaasoo kale waa paragraph luqadda English ku qoran. waxaan leenahay okay intaynan og translate ku dhufan halkaan waxaan leenahay English way luqadaas maxaad ku turjumaysaa af Soomaaligeena luqadeena ku turjumaysaa tusaale ahaan waxaan leenahay Soomaali. okay intaas marka doorato xaggaasna ay document ku dooran tahay dadna waxaan leenahay translate turjum. markuu wad luqadii English soo baxdo waa English laakiin hadda u fiirsada. okay video wuxuu bixiyaa hab awood u leh oo ka caawinaya inaad codayso ujeedada markaad gujiso fiidiyoyada. waliba imka waxaan isticmaali doonaa terminology word bu isticmaalay oo bixintii word ku isticmaalay. hadhow waxaad oran kartaa right click dabeedna save aad oran kartaa, dabeedna waxaad dhigi kartaa tusaale ahaan desktop, dabeedna waxaad u bixin kartaa tusaale ahaan oo kale translate baad bixin kartaa tusaale ahaan okay translate baad bixiso okay html box save gareyn kartaa single file kan bawda tusaale ahaan save aad leedahay okay. soo hadda ma aragtaa translate kana okay translate kana habka iyo noocaas looga faa'iideystaa runtii loo isticmaala. service-yada kale idinkaan runtii idin dhaafaya, service-yada kale kuwa ugu muhiimsan istul taagnay kuwa kale runtii idinkaan idin dhaafaya. halka waxaad ku aragtaa saddex section baad ku aragtaa oo muhiima waa ata primary iyo social iyo promotion. primary waxa weeyaan waa meesha fariimuhu inoo yimaadaan in boqos kadaan ku dhufano waan primary ka joogno waa meesha fariimuhu idoo soo galaa. haddaba social waxay tahay emailka hadda sameynay dee qofku wuxuu ku samaysan karaa Instagram, wuxuu ku samaysan kartaa Facebook, wuxuu ku samaysan kartaa LinkedIn profile, waxaad ku samaysan kartaa account kasta ku samaysan kartaa. ka wixii social hadhow la xiriira YouTube baan ku samayn doonaa. YouTube hadhow social waxaad kala socon doontaa dhammaan commentiyada laga bixiyay iyo wuxuu dhamaad kala socon doontaa. commentiska laga bixiyay wuxuu dhan iyo like-ta iyo waxa xoojinta iyo waxyaalahaas dhan marka kala soconta iyo subscribe-ka. marka meesha lagu socdo meesha social-ka meel kasta Facebook ku xidho, Instagram ku xidho, LinkedIn profile ku xidho intaba. qaybta promotion hada uu socono promotion iyo hawlo kale hadda ka hadlayno. waka inta markaynu sida u fahanay waxaan ka doonaa security-ga qaabka wax looga bedelaa. security-ga runtii isaga iyo dhammaan security-ga in wax laga bedelo aad bay u muhiimsantahay. security wax laga bedelaa security waxaan samayn doonaa haddii qofku email-ka iyo username-ka iyo password-ka hadduu helo qofkaasi account-kaaga ma soo geli karo. marka waxaan ku xidhan karnaa mobile-kii aan ku soo sameynay ku xidhan karnaayo markasta email-keenu gelin mobile-keenu ka ansixin doona taasi ku xidhnaa. laakiin intaan taa ku xidhan waxaan runtii isu taagi doonaa qaabka password-ka loo jabiyo isu taagi doonaa. password runtii marka la jabinayo waa muhiim. password-ka in la jabiyana aad iyo aad bay u muhiimsantahay oo fiican tahay. ka haddii aad ifin ilowdo kale inaad password iska jabiso waa muhiim. si loo jabiyo dib baan uga soo baxaynaa tusaale Cabdiqaadir waxaan leenahay sign out marka saa u dhaahdo sugaynaa account Cabdiqaadir baan soo dooranay tusaale Cabdiqaadir Axmed waa kan email-kiisa waa garanayna waa ka password-kiisa baan tusaale ilowna dhima laha waxaan leenahay forget waa ilownay. wuxuu ku sheegayaa numberka 16 u dambeeyo ma Cabdiqaadir baa leh ama ma qofkaas leh 16 inta kale uu ka qarinaya
oo security buu qarinayaa maxay numberada inta kale ka qarin doona marka miyaan ku soo garaacnaa mise waa taxli hadii soo garaacdana waan dhageysan kartaan hadii kale SMS-ka waa labadaba arki kartaa waxaan leenahay qoraal ku soo dir marka waxaad arkaysaan hadda message-ku inoo soo dhici doonaa sanqadhiisana mobile-ka waa maqli doona hadda la dhigo code-ka way suginaa okay soo marta SMS-ku soo dhacay waa gelin doonaa waxaan hadhow gelin doonaa G-ga waad ka reebi doontaa G waa 042 lama raajiyana 392 ka imkan qarintiisa waxa ma sheegayso algorithm-ka soo dira waxa sheegmayso ka waxaan leenahay next ka new password samaysanayno ka password cusub samayso waxaan leenahay password cusub baan samaynayaa talahan ka waxaan leenahay safe okay marka runtii qof kasta oo ugu jiro email laakiin passwordkiisa aan garanay saas u sameynaya marka inta markaan sameeyno passwordkii aan jabinay waxaan sameyn doonaa runtii kan imka alert uu soo diray waxaan passwordkii laga jiyo alertkaas ku siinaya soo qofku arko in passwordkii la jabiyay oo la crack gareeyay hadda waxaan la afwan in passwordkii la reset gareeyay uu ku sheegay marka bal waxaan qodob ku dheesleegi doonaa security-ga sidii wax looga bedeli karaa qodob runtii haddii aad ka qabato ay adag tahay in account-kaaga la cusubsado account ka dhigto yaad ka dhigto Facebook mid kastana waa lagu sameyn karaa runtii ka waxaan sameyn doonaa runtii settings kan tagaya afwantiina settings ka hadii fanda isha deedna waxaan leenahay manage your Google account kan manage kareena waxaan tagi doonaa security-ga markaan runtii saa u tagno waxaan ka sii doona hoos baan u digi doonaa automation socona inta leader b xoga advance ba ku jira marka hadda ma arkayna hadda waxaan ku dhufan laakiin two step verification code baan ku dhufanaya waxaan leenahay two step verification code waa muhiim ka two step waa maxay macna laga jeedaa marka password-ka waa step sooma qof username password-ka inuu helo waa one step inuu mobile-ka helan waa two step marka waa two step verification code waxaan leenahay get start hadda markaan geli doono mobile-keena waynu ka ansixinaa hadii kale suuro geli mayso ka password-ka geli buu leeyahay password-ka gelinayaa my password-ka geliyo waxa password-ka waniga gelinay asugayna waxa number-kii waxa laha Cabdiqaadir ka kul shay ama qoraal baan ku soo dirnaa mise ku soo wacnaa xaleena qoraal ku soo dir tagas ku soo dir process-ka socda waxa wad shaqadiisa waa idin dhigeysin doonaa aad baan soo dhaweynaya waan idin dhigeysin doonaa runtii waxa waan eegi doonaa waa 588836 sida xaleena next tar ku soo dinshaysan doona kartaa su'aalaha kale turn on baud ku shida hadaba turn on ku xid 3 steps si waan maraynaa turn on lagu sameeyo waa lagu xidhayaa waan suugaynaa marka inta lagu xidhayo waxa taa imika waa lagu xidhay hadhowtadin saa gala imika waan log off ku soo sameeyno waan isna gala tusaalaan xaleen log sign out baan leeyahay waa in hadii meel kale cusub laga galo ligeeda marka waxaad gelisaa maxay mobile-kaagii code-kii lagu soo diray geli aad bi security-giisu saxaysa marka aad iyo security-giisu raysa runtii YouTube laga sayaxan meel inaanay aad u adkaanayso waayo casharku u dheeraaday casharku saacad buu si kulaalayaa saacad buu si dhawaanayaa marka YouTube runtii waxaan doonay wax badan laakiin isagana waxaan ka dhigi doonaa course gaar ah ayaan insha Allah ku dhigi doonaa wixii insha Allah information waxaan ugu soo diri kartaa caalin.info@gmail.com comment-ga wali wadaagta wixii insha Allah aad nuqul talinaysa ama nugu xoojinayso waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.